toddobadan sifood waxa leh dadka dhaliisha qaata ee aan shakhsiyan u qaadanin dhaliisha loo soo jeedinayo. kow waa dad kalsooni fara badan ka qaba naftooda, kartidooda iyo mawhibooyinka ilaahay siiyey. laba waa dad feedbacka u arka oo ay dhaliisha ku jirto inay korinayso oo ay wax badan u tarayso. waa saddex maaha dad markiiba istifaacid iyo is-adkayn la soo booda, waa dad wax dhagaysta. waa afar waa dad u arka in qofka bini'aadanku aanu 100% sax ahayn ee uu qaldami karo oo maqaldame uu ilaahay yahay subxaanahu wa tacaala oo qofka la toosin karo. waa shan waa dad dhaliisha loo soo jeediyo markiiba saxa maadaama aanay shakhsiyan u arag calolxumaan aanay u qaadanin. waa dad wixii loo soo jeediyo toosiya oo dhaliisha qaata. waa haddii dhaliishu ay tahay dhaliil constructive ah oo wax dhisaysa. waa lix waa dad marka horeba talooyinka u diyaarsan. waa dad jecel inay helaan aragtiyo kala duwan, talooyin kala duwan oo dad kala duwan uga yimaada si ay wax soo saarkooda u tayayaan. waa toddoba waa dad jecel runta iyo daacadnimada. haddii runta loo sheego oo si daacada loo dhaliilo aan waxba u arag